بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan maanta la fadhinaa Suldaan Maxamed Siraaje kuma gacdheer Suldaan Siraaje oo kamid ah odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed maanta wuxuu fariin u dirayaa iyo dhambaal ururka ONLF oo sanad guuradooda 38 ku beegneed 15 August 2022 kusoo dhawow Suldaan Siraaje. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا هلكن سلام يا وانتهنيات ودريا لمان حبناها هي مسؤولينتا هي ودتك لمان شعبك الصومالي كبير هي تغييرات شغلنا أورك أورله عن حزبك أورله أيام تهنيد هي همبليو أنا كوبي كنا هلكن وندريا عندي مرة وهذا الدير إن هلكن عن هذا عن كيد هذا لكن بالمناسبة إن جود بيو عد كيجا شعبك صومالي كبير أنا جود بيو oo ama xisbiga ONLF aan u gudbiyo ayaan sugu yeeray raggan dhalinyarada guud ahaan horta raggiina dhalinyarada ah idinka waxaan idin sheegayaa taariikhaha Soomaalidu ay leedahay ee qiimaha badan ama taariikhda gobolkan Soomaali galbeed uu leeyahay ee halganka ku dhisan ee ilaa Axmed Guri ilaa Sayid Maxamed ilaa أفر يلحنكي حزب الله إلا هايدي جبهتي الصومالي قلبين حزب ما توركي لورنجري الصومالي قلبين الدجالتي هو وينا دالك كرجري كدمنا ورك على أي كبل لوذين ورك أونلف هو وينا ولينا قوسعه تاريخنا سوى تاريخ مدة آذو دير سعودي إلى الله بقوله سنة وهلقنا هاي ومدينة وحي ضد نماذج يجريتان كيد والسوية مركي تاريخ هذا كرون شاكتو وتاريخ هذا أي كوفانتو وتاريخ هذا أي قرطو ومارت محايا دي موزيوم لديغو ومتحف لديغو ومدى جيرانك الصوصة أي كسي وفا إليستان لو كيديو ومدي سلاسي معنا كلها لكن أنا وحان آمسانهي نماد نعبتهي والسياسة أسكي سور جدا هي نماد جعشها بتاريخ وتاريخ إن تاريخ الدلكاغا آدميسك هوستي سجلسيد أو هوستي بكتيد سحما أرين فورحوي أرين عيبوي waxaan inta kaga gudbayaa arinta aan sheegay waa arin jirta weey oo dadka Soomaali galbeed iyo mas'uuliyiinta dalka soo martay waxaan kala ahnahay taariikhdii dalkan u lahaa ee halganka ahayd ee suugaanta ahayd ee isku qoofalayd inay qoraan oo soo bandhigaan oo ay u sameeyaan meel lagu kaydiyo iyo meel la yaqaan oo dadku tagaan oo laga akhristo oo dhalinyarada iyo iskuulada lagu dhigo ayaanu kala sidaas baan soo qaatay hadalka isaga waana muhiim in la qoro taariikhdii hore ee maartay maxaydi Axmed Guri tii sayidka tii maxaydi Nasrullah tii maxaydi 77kii xisbigii Soomaali galbeed tan ONLF iyo kuwii kale ee aan xusuusnay inay jiray inta halgan baa socday uu jiray Umar Nuur halgan buu maartay Umar Nuur maxaydi shaq Macallin Khalif الله يرحمه هل جنبو كل انتي وسووا يربي الله وحان حسوستا سووا معلم كا سكول كي سانو مالينا يا بنات السكول الحمر ايو صورة عبي صبح تيتنا وليجي يقلي هل جنبو كجيرو كل انتي ومدين ومد سو ساون بيهيد وليجي دي عليه ركبانو عن هذا قرني انو جيجيجا جوغا يا كل انتي ايا إلي خيريشان ومستقبل إسلام وجوجي قضية
wax afka laga dhowri kari maaha waa wax u baahan in la waadixiyo oo la sheego oo lagu celceliyo oo la qoro ummadda loo sheego intaa kadib ururka ONLF waa urur ballaaran oo muddo dheer soo halgamay halgan dheer ku soo socday xorriyadoona ah welina xorriyadoona qalin ku shaqaynaya maanta waxaa weeyaan maalinkii ay yimideen Sweden baan joogay shir jaraa'id baan qabtay waxaan la hadlay madaxweyne Mustafa iyo ururka ONLF khilaafkii naga daayaan warin ma yaro khilaafkii naga daayay adduunka intaan ku noolahay khilaafun kuma dhamaysan karno nolosheena maanta haddii xisbigii ama ururkii ONLF lagu marmarsan jiray maamulka kolba ninkii fadhiistaa iyo dadka ku gumaadi jiray hadduu soo galay oo jigjiga yimid gacmaha isqabsada mucaaradnimadu waa caadi dhib male xisbi mucaarada ha iska noqdo laakiin khilaaf soo baxa iyona dhici tiimaan maantana leh wixii dhacay wuu dhacay wax walba waxaa la yidhaahdaa tagta daayo timaado wax ka qabo wixii tagay tiigsimaad malena waa liya qur-aankana ilaahay wuxuu ku leeyahay cafa allahu camaa salaf waraan iska cafina wixii hore war hadda wixii caawa maanta laga bilaabo aynu beyj cusub aynu qeexano beyj cusub inaad furataan baan doonaya madaxweyne Mustafa isagaa kurkii ah in uu bedelo siyaasadiisii ayaan aada uga codsanayaa hadalkaa in badanna waan idhi waana ku celceliyey waana guul isaga uu ku gaadhi karo oo ku faani karo siyaasadiisu ay ku hagaagi karto weeye xaqiiqatan hadduu nala fahmo ururka ONLFna waxaan leeyahay war waad soo halganteen waad soo adkaysateen dhib badan baad soo marteen maanta wixii cadaadisa oo ama idinkaga yimaada dowladda federaalka ama idinkaga yimaada dowladda deegaanka waxba ma ahe dhib ma lehe wax ka weyn baa usoo adkaysateen ha u jixinjixinano halgankiina siyaasadda hore u wada ayaan leh waxyaabaha yaryarka ee jallaafooyinka oo soomaalidu iska taqaano ila siyaasiga soomaaliga weligii maskaxdiisu ma korto kor uma kacdo weligii allih siyaasiga soomaaliga waxa weeyaan waxyaabahaas kor waxa looga baxo shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ee dalka degan hala taageero ururka hala taageero xisbigan hala taageero waa noloshiinii rasmiga ahayd weeye xorriyad waxaan ahayn oo intiqaami jiro waxaan madax bannaani dowlad gaara inaad noqotaan aan ahayn oo idin anfici karaa ma jiro dowladda Ethiopia waan ku hoos noolnahay laakiin khiyaar inagu aan leenahay kuma hoos joogno waxaanse hadda ogolnahay inaanu wada dhaqanno oo si nabadgelyo ah oo qof walba xuquuqdiisa iyo maxayda ummad walba xuquuqdeeda ay helayso inaanu ku wada joogno waabaan ogolnahay laakiin xaqiiqadu taama ahee waa waxa weeyaan waa dani kubaddi wey waa wax dani kubadday waa in xisbigaa aan taageerno wey hiil iyo hoo inaan isla garab taaganno wey wuxuu u taagan yahay oo mar walba u taagan yahay madax bannaanida dalka wuxuu u taagan yahay xuquuqda dadka Soomaaliyeed in ay helaan ayuu u taagan yahay waxaan leeyahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa guddoomiyaha xisbiga ONLF Cabdiraxmaan Maadey iyo guddiga fulinta iyo golaha dhexe iyo maaragtay shacabka iyo taageerayaasha iyo ummadda Soomaali galbeed degan oo dhan salaan kal iyo laaba ayaan salaamayaa waxaan idin leeyahay guuleysta waxaan idin leeyahay qalinka ha lagu dagaalamo carabka ha lagu dagaalamo xuquuqda aad leedihiin dad waxaa jira wax garanaya oo Soomaali ah oo rag waaweyn ah oo alla yaabe xitaa dhaqankii Soomaalida oo dhan ka guura oo si dacfi ah daciifnimaha inay u noolaadaan doonay waxaas u gabadhnimo ma war ilaahay baa naftan ilaahay baa haya waqti bay idaa jaa ajaluha laa yastaakhiruna saacatan walaa yastaqdimuun maalin bay leedahay daqiiqad lagugu dari maayo daqiiqadna dib lagugu dhigi maayo laakiin gobonnimo ku dhimo oo sharaf ku dhimo oo dadkaaga u halgan oo carabkaaga ugu halgan oo maskaxdaada iyo caqligaaga iyo aqoontaada ugu halgan oo hays hoos dhigin nin kaa liita adiga hays hoos dhigin war aan halgankii weligee socday aabbayoogan abuuyadeen
yaynaan daynin ilaa aan meeshii aan rabnay aan tagno waxaan dardaarmayaa wadajirkiina ilaaliya iyo midnimadiina waxaan dardaarmayaa in isku si cadowga dalka ku soo duulay ama gudaha jooga ama dibadda ha ka soo galeen in la taageero oo dowladda lagu taageero oo maxay ahayd dowladduna ay dadka soo wada dhaweyso arrin kanaba keenayaba mucaarad iyo muxaafid baa in la midoobo kanaba keenayay siyaasadii hore ha la bedelo midnimada mucaaradka iyo midnimada dowladda ha la adkeeyo shacbiguna ha raaco oo ummadda mid ha noqoto ummaddu aad baan idiin salaamayaa ilaahay waxaan idinka baryaa inuu abaartiida ka saaro ilaahay waxaan idinka baryaa sixir bararka inuu ilaahay inaga baabi'iyo alla waxaan weydiisanayaa inay noqoto Soomaali galbeed dhul degan oo green ah oo barwaaqo ah oo dadkiisu nool yihiin oo nabad ku wada nool 5 webi baa marta soo afar webi baan rabaa 4 webi baa marta iyo dhowr iyo 20 tog oo biyuhu soo socdaan dhulka noocaasa shidaalkiisa baa banaanka yaala macdantiisa baa banaanka taala waa dhul barwaaqo geeska Afrika oo dhan ku filan laakiin waa markee